السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد الله رزوان وحنا halkan igu soo gudbin doona taariikhda dalka Mali. dalka Mali wuxuu dhacaa galbeedka qaaradda Afrika, jihada waqooyi waxa ka xigta Algeria, dhinaca galbeedna wuxuu Saudi la wadaagaa wadamada Senegal iyo Mauritania, halka ay koonfurta ka xigta Burkina Faso iyo Ivory Coast. sidoo kale dhinaca barina waxa ka xigta wadanka Niger. badka uu dalkan ku fadhiyo waa 1,240,192 kilomitir square ah. cimilada dalkan waa kuleel oo qaleel ah. caasimada wadankan waxa lagu magacaabaa Bamako, luqadda rasmiga waa Faransiiska. dadka reer Mali boqolkiiba 94 waa dad muslimiin ah, halka ay ka tahay Kirishtaanku boqolkiiba 2. dadka ku nool dalkan Mali qiyaas laga qaatay sanadkii tagay waa 14 milyan. dalkani waxa gumeystay Faransiiska waxayna xornimada ka qaateen 22 Febraayo 1960. wax soo saarka sanadkii waa 41 milyan. qofka reer Mali mushaarahan waxa soo gala 2200, halka ay ka tahay shaqo la'aanta boqolkiiba 8. wadankani Mali wuxuu ku jiraa wadamada ugu dhaqaalaha fiican ee qaaradda Afrika.